iyadoo habeennimadii xalayta uun la ansixiyay baarlamaanka cusub ee dalka Soomaaliya uu yeelan doono ayaa waxaa dirtaba soo baxaysa cabashooyin ku aadan qaybtii ay ku lahaayeen dumarka baarlamaankaasi cusub. guddi u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka ayaa maanta ka soo saaray magaalada Nairobi bayaan ku aadan arrintaasi iyagoo sheegay in heshiis ka mid ah heshiisyadii ugu muhiimsanaa ee roadmap-ka maanta la jabiyay isla markaasina ay waxba kama jiraan yihiin heshiisyadii roadmap-ka ee la kala saxeexday oo dhani. cabashooyinkan ka soo yeedhaya haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli xasaasi oo ay wada gudbeen inta badan xildhibaanada cusub ee dowladda Soomaaliya iyadoo ay meesha ka maqan yihiin qaybo ka mid ah xubnihii loo qoondeeyay baarlamaanka haweenka Soomaaliyeed. haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay muddooyinkii dambe u suxulduubayeen sidii ay u heli lahaayeen kootada looga qoondeeyay baarlamaanka Soomaaliyeed waxayna sameysteen dallad loogu magac daray SWCG Somali Women Campaign Group. haddaba maxay tahay SWCG? waxaan masalaynaa gabdho Soomaaliyeed oo isku xilqaamay arrimaha haweenka qaasatan kootadooda baarlamaanka marka oo aan halkan ka shaqeynayna annaga iyo kuwa xamar jooga iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga iyo kuwa kale oo dibadda jooga si aan mataqaana isu gaarsiino warka isla markaasna aan u helaan haweenka Soomaaliyeed kootadii loogu talagalay oo ahayd 30% ee baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo shaqooyinka soo bixi doonaba. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xubnaha dalladan u dhaqdhaqaaqa xornimada haweenka Soomaaliyeed ee dhanka siyaasadda oo maanta la hadlayay TV-ga Somalisat ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin qaabka loo wado howlaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena aysan dowladda cusub soo dhismi doonin ilaa la dhameystiro heshiisyadii saxaxayaasha roadmap-ku ay galeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaali oo dhan waxaan war-saxaafadeedkan aan dambaalkiisa sido waxa waaye mid haweenka isla shaqaynayay oo ku jiray ololeynta baarlamaanka 30% ugu yaraan oo roadmap-ka ka ahaa rukun adag oo haddana fuli waayay in aan ka soo saaro war-saxaafadeedkan wuxuu leeyahay iyada oo shuruudihii roadmap-ka ay ahayd shardigii ugu adkaa in 30% ay noqdaan haween markay ugu yar yihiin rukunkaasuna la jabiyay ahaydna inay ilaaliyaan 27 ruux oo Soomaaliyeed oo loo doortay inay ilaaliyaan oo u badan rag in dadka international community lagu magacaabo bulshada caalamka ah oo wakiilka ahaa ama wali ka yahay ambassador Mahiga jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo bulshada caalamka ba wakiil uga ahaa gacanta ugu weyn ku hayay geedi socodka samaynta ama soo saaridda baarlamaanka Soomaaliyeed ee ugu horeeya waxa ay ku riiqdeen oo ay ku ceeboobeen in ay abuuraan baarlamaan 30% aan u dhoweyn iyadoo ay dhaariyeen 215 qof xalayto haweenna aan filayno inay yihiin 65 annagoo male ku wadna ayna ahayd waxa la rabay inay ahaato 15% markay niman tahay haweenku ahaadaan 65 haddana ay aad iyo aad uga yar yihiin inay 15 iyo 20 meelaha cagacagaynayaan aan u malaynayno sababtoo ah xogtaas waa la qariyay Mahiga markuu cilaanka sameynayay ma sheegin waxayna tahay marka baarlamaanka la soo dhameeyo haweenku inay lahaadaan ugu yaraan 83 xubnood arrintaas oo aad ugu cad ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumar iyo dhalinyaraba waxa aad loo dulmay waxa weeye roadmap-kii baa la dhaawacay roadmap-ku hadduu dhaawacmay waxa dhaawacan oo aan xalaaloobayn baarlamaanka maanta xalay la inoogu mushxaraday waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inay taageerto haweenka
oo codkiina iyo codkayaga aan sugayno dhalinyaradu taageerto aan meel alla meeshii caalamka wax ka xalaaloobaan oo sharci yaqaan ah ama ummadda kala saarta aan geyno arrintaa iskuna ogaano kuna wada doodno iskana kaashano inaan cadayno baarlamaanka xalay la sameeyay inaanu xalaal ahayn. haddaba waa maxay talada kaliya ee la gudboon haweenka Soomaaliyeed haddii ay suurtagal noqon weydo in la helo kootadii looga qoondeeyay baarlamaanka Soomaaliya? waxaa jirta kuraas dheeraad ah oo loogu talagalay in haddii isqabqabsi timaado in lagu kala xaliyo. marka waxaan weli soo jeedinaynaa cidda ka mas'uulka ah maxaa la dhahaa arrimaha baarlamaanka in ay u qaadato tiradaasi in haween laga wada dhigo. Soomaaliya oo muddooyin badan ku soo jirtay dagaalo sokeeye ayaa haatan waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah waxaana la filayaa in dhawaan la sameeyo dawlad dastuuri ah lamana oga murankan ku saabsan xilqaybsiga ragga iyo dumarka Soomaaliyeed waxa uu dhimi karo dawladda cusub ee la filayo in dhawaan dhidibada looga taago dalka Soomaaliya.